wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi kana soo ambabaxay magaalada Cadaad ee xarunta ku meel gaarku ah maamulka Galmudug ayaa waxay gaareen degmada Duculey ee gobolka Galgaduud. markii ay Duculey gaareen waxaa ku soo dhaweeyay boqolaal qof oo ka kala timid xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Duculey ee gobolka Galgaduud. socdaalka wafdiga waxaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ku helinayay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug. waxaana socdaalka ujeedkoodu uu ku saabsanaa sidii ay xarig uga jar lahaayeen mashaariic dhowr oo laga hirgeliyay degmada Duculey ee gobolka Galgaduud sida saldhigga degmada, xarunta degmada iyo isbitaalka guud ee yeelanayso degmada Duculey ee gobolka Galgaduud. markii ay dhammaanba kormeereen xarumahaasi ayaa waxaa loo sameeyay munaasabad weyn oo lagu soo dhaweynayay madaxdan ka tirsan maamulka Galmudug iyo sidoo kale wasiirkan ka socda dowladda federaalka Soomaaliya. goobta munaasabadu ka dhacaysay waxaa uga warbixiyay xaaladda Duculey iyo sida ay tahay gudoomiyaha degmada Duculey ee maamulka Galmudug Mudane Jabuuti. Duculey markaan ka hadlo Duculey muddo 40 sano ah ayaa waxay tahay dhismeedu ku sineeya 40 sano hadda heer ayay soo jirtay 85 ayaa ugu horeeyay mashaariicdii ugu horeysay oo laga qabto motorka degmada Duculey ayaa laga muday ka bacdi heer kasta ayay soo joogtay. inta kadib waxaa munaasabada ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig asagoona sheegay in xarumaha waxyaabihii ay ku shaqayn lahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ay u soo dhameystiri doonto. qiimaynay riboodka noo keenay wasiirku noo keenay iyo xaaladaha yaalla inaan ku talagalnay in aan dhimaano halkan idinkala qayb galo. wasaaradda arrimaha gudaha mas'uuliyadeeda koowaad ee heer federaal waxaa weeye inay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo ugu dambeyntii munaasabada ka hadlay ayaa asna dhankiisa dadka reer Duculey waxa uu sameeyay ballanqaad. isbitaalka iyo iskuulka oo dhammaantoodna ahaa wax dadka shacabka ay ayaga maaragtay dhisteen oo ayaga ay samaysteen. runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo marka la eego oo aad iyo aad maaragtay loogu mahadiyo. sababta waxa weeye dadku haddii ayaga isku tashtaan waxay muujinaysaa in maaragtay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo wafdigan uu hogaaminayay ayaa markii ay ka soo ambabaxeen degmada Duculey ee gobolka Galgaduud waxa ay ku dhawaad 10 kiiloomitir soo lugeynayeen ayagoona u kurgalayay xaaladda deegaanada hoos yimaada degmada Duculey ee gobolka Galgaduud. Saadaq Cabdi Shadana Saadaq Laki Bulsha TV magaalada Cadaado.